السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa warbaahinta horseed Somali TV. kulanti habboon daawadayaal, maanta barnaamijkeena waxaan ku qaadaa dhigi doonaa ku falaqayn doonaa colaadaha Soomaalida keyga Soomaalida aadka ugu soo noqnoqda ee aan weli xal laga gaarin, sidoo kale qodobada horinaya amaba sababaya inay colaadahaasi har iyo habeen dhacaan ama maalin kasta oo gobol ka mid ah Soomaaliya colaadu intay doontaba ha leekaatee ama say doontaba ha ku dhacdee ay ka dhacsan. warbaahinta horseed Somali TV kala soco walaal warbixino dhaqanka arrimaha bulshada iyo xaalad kasta oo markaa taagan. fadlan si aad barnaamijyada la socotid xukumo oo ku xidhnow laguna soo dir haddaadan nala joogin qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aan ku leenahay. mahadsan. ugu horreyn aan ku bilownaya meelaha ugu dambeeya gobolka Mudug waxaa ka dhacay dagaal beeleedo kaas oo sababay 12 qof dhimasho iyo ilaa 30 dhaawaca shalay ayaa laga sheegayaa degmooyin ka tirsan gobolka Mudug oo gaar ahaan gobolada Soomaalida marka loo eego aad iyo aad isagoo colaada ugu caana oo colaada qabaa'ilada ka dhex dhacda ama say doontaba u dhacday aad iyo aad isagoo ugu caana oo xal aan laga gaarin weli oo ka sii xig jira gobolada Soomaaliya, inkastoo gobolada koonfurtu aad iyo aad ay colaadaasi uga dhex dhacdo, laakiinse gobolkaasi uu ka sii xig jiro oo gobol aad qololaashihiisu u badan yahay uu ka mido mahmaha caanana ay jiraan, inkasta aan tilmaameyn oo colaadaha iyo qaxarka gobolka ka dhaca har iyo habeen tilmaamaya. waxaan ku bilownay horta colaadaha maxaa sababaya, maadaama barnaamijkeena ku falanqayn doono qodobada sababaya. haddaynu ku bilowno waa siyaasad xumada ama hoggaan xumida waddankeena ka jirta, hadday heer maamul ahaan lahayd iyo hadday heer federaal ahaan lahaydba. siyaasaddii ama hoggaankii dalka uu ahaa heerku doonaba ha joogee oo aan colaada ka dhiidhiyan amaba dadka kala dhex gelayn waxa loo yaqaano colaada sidii ay ahaan jirtayba aan gacmaha dadka la kala qaban ee siyaasaddu ay isku sii horiso oo ay sidii dhaqanka Soomaalidu ahaan jiray baalmarsan oo iyo siyaasadda xumada lafteeda, maadaama ay siyaasad qaloocan oo xun tahay wax loo yaqaano oo nixtooxsi iyo nin duusi ay ku salaysan tahay. sidaa daraaddeed iyadana wuxuu sababayaa in ay siyaasad xumadaasi sii horinayso. sidoo kale qabyaaladii weligeedba waa jirtay, qodobka labaada weligeedna Soomaalida waa ka dhex jirtay. Soomaalida weligeed waa isqabyaaladin jirtay, hase yeeshee waa qabyaaladii oo waxay heshay baalla ay ku duusho amaba diyaarada ay ku duusho amaba hawadaas wax mariya oo meelka allaaliya meesha joogtidba kugu geenaya. waxaasina waxa weeye waa miidiyaha ama baraha bulshadan Soomaalidu ayaa sida xun isticmaasho ee waxa loo yaqaano ay har iyo habeen ayada iyo faanka iyo aflagaadada isu dhex marinayaan. sidoo kale taas oo hawada gelinaysa inay duubto amaba khasaarihii ka dhex dhacay intuu doonaba ha leekaatee in hawada la isu mariyo, taasoo lagu ladha faan, taasoo sii kicinaysa qofkii wax ka geystay, qofkii wax loo geystay ku sababaysa inuu isagana wax geysto. oo sida in badan oo aad ka mid aad miidiyaha ka daalateen ama aad ka aragteenba indhihiinu ay idiin macallin yihiin saan filayo. sidoo kale qodobka saddexaad oo sababaya waxaa ka mid a waa hubka faraha badan ee ugu jira ummadda Soomaaliyeed gacanta dadka shacabka ku jira, oo sidoo kale kusoo qulqulaya ee aan ku jirin aan ka joogsanayn. hubka Soomaalidu ay haysto weligeedba gacanta waa ku jira ilaa dowlad burburkii, hayse ahaatee maalinba maalin ka dambaysa hub ayaa imaanaya oo noocu doonaba ha leekaadee ama hubkii waaweynaa ee
qoryaha la saari jiray ee tiknikada ahaa sidoo kale soomaaliya wuu yimaadaa iyadoo cunaqabatayntu soomaaliya ay saaran tahay hase ahaatee habmusu maasuq uu soo galaa waxaana ku macalina oo aada markhaati kuwa hadhiyo hameen baabuurta qoryaha la saaraya ee qabaa'ilada soomaalidu ay samaysanayaan ayaa isagana khasaaraha ugu badan keenaya khasaarahaas oo soomaalidu hadday weligeedba waa isleyn jirtay waxay ku dagaalami jirtay oo ugu weynaa hubkeeda akey ama qoriga akey 47 loo yaqaano ee qoryaha gacanta lagu qaata ah hase ahaatee hadeer waxaa la isticmaalaa oo tiknikada iyo qoryaha darandooriga u dhaca ee qorigaa kasii weyn isaguna khasaaraha ayuu aada usii badanayaa sababtoo hal maalin ayaa intaasoo khasaare intaa ay ku dhacayaan ugu dambeyntii colaadii soomaalidu ay ka dheendhihi jirtay oo isaga ka dhex kici jirtay oo ay wax loo yaqaano ka duuli jirtay in colaada la qaboojiyo oo la hagraday waxaana aada arkaysaa hadhiyo hameen colaada dhacaya gaar ahaan gobolka aynu tilmaamay hadhiyo hameen colaad ayaa dhacaysa haddana waxgaradkii soomaalidu ama culimo ha ahaato ama madax dhaqameed ha ahaato ama hogaaminta siyaasadda aynu soo tilmaanay oo iyadu aan warkeedaba aysan ku jirin ayaa iyadana sababaya in oo laga seexday colaadii oo laga seexdo colaadda haddii laga seexdo qodobada aynu soo tilmaanay ayaa hawada ku dhigay kadibna wax caadi ah oo loo arkay intii doona ha dhimato intii doona ha dhaawacato khasaare intii doona ha soo gaadho ummadda colaadiiba wax u jaamaynaya mooye wax afka qabtaba lama hayo waxaa la yidhi ama soomaalida oo ku mahmaadaa balaa af la qabtay leedahay daba la qabta male sidoo kale colaadda soomaalidu aada iyo aad bay uga dhiidhihi jirtay sugaan badanna waa laga tiriyey urtalow ceelka jooja waa ciiddaasay ka badan tahay hadday awaanin tahay iyo haddaynu garbood kalaba tahayba colaadda aada iyo aad ayaa waxa loo yaqaano looga dhiidhihi jiray oo looga kici jiray hase ahaatee baryahan ama sanadahan ugu dambeeya wax colaadii ku faanaya ama wiil yaroo qorisita oo dagaal iyo wax loo yaqaano intaasaan geystay ku faanaya mooye ciddii gacanta qaban lahaydba lama hayo arrintaasina aada iyo aada waa arrin dhaqan xun oo bulshada keenaysa in ay dee meel xun ku dambeyso ugu dambeyntii faankan laysku maranayo hawada oo dad aan waddankaba joogin gaar ahaan dadka baraha bulshada isticmaala ee qabyaalada lasoo fadhiista miidiyaha oo reer hebel iyo reer hebel isagoo aan waddankaba joogin oo dibadaha caydh ku qaata ka shaqeeya oo horumarka iyo waddankii u tegay aan ka faa'iidaysanayne intuu qol isku soo xidho oo caydhna qaato halkaa reer hebel iyo reer hebel kasoo yidhaahda gaar ahaan dhalinyada waddanka joogtaana inay markaa ay wax ka dhagaysato wax ka qaadato gaar ahaan kuwa colaadda horinaya amaba colaadda faraha kula jiraay ay wax ka qaataan oo shidaal dadkaas u noqdaan waa nasiib darro aada iyo aada u weyn oo bulshada soomaaliyeedna tilmaamaysa inay dee meel xun ku dambeyso gaar ahaan haddii dhalinyarada ay tahay inaysan dadkaas aysan wax ka qaadan oo ay dadkaasi aysan dabka ku gurin oo aysan xaabo noqon ayaan ugu dambeyntii ku talinaa barnaamijka intaasaynu kusoo koobaynaa haddii alla idmo barnaamij ka dambeeya waxaan ku falanqeyn doonaa heshiisyadan iyo gaar ahaan khilaafka etoobiya iyo udhexeeya soomaaliya iyo GS-ka hardanka ka socda soomaaliya dagaal magadegi geli kartaa masar iyo etoobiya oo islaanaya soomaaliya isla jiraan ayaynu iyadana ku eegi doonaa haddii alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.